السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مقال عصب أصحابتي أنا كحرن حرد أكاديمي وحيد الله مركلة إي مقال عصب هدي أد نقو عصب تسودو هدي أد هرم وجدتنا حكوا لي هاي سودو مركلة هذه كنا هدي أد نقو عصب تهين فضلا سبسكرايب لايك شير كومنت انتبه إنه قدر هدي مقال كان يوقع عجيبي وحنقول لها إنك كومنت إنه قصقر وحي تلا يتصالح هدي مقال كان أد كهشينا وحنقول لها هاي لايك شير أصحابتي هذا الوذاك انت اصحاب u baahan inay ingiriiska baratana la wadaag okay markaas intaas kadib macnaha salaantaas iyo furfurashadaas kadib waxaan leeyahay koob shaah soo qaada galaas biyo soo qaada wax walba aad dacwaysid soo qaada fariiso kursi qaado ama haddaad taagan tahayna fariiso haddaad jiiftidna soo fariiso qalin iyo buugna soo qaada waayo maanta waxaan baran doonaa muuqaal aad iyo aad macnaha cashir aad iyo aad u wanaagsan oo ku saabsan tense simple future tense waa dhacda aanan weli dhicin oo qofka si simple ama si macnaha maskaxiyan oo qofka ugu fikiro like future mustaqbal ahaan waxaana hore u dhicin inuu qofka image gareeyo mise uu isku dayo in uu suuraysto mise uu sawirto waxaana kasoo qaadan doonaa anagoona cashir ka dhigana laakiin sheeko yar oo ku saabsan simple tense-ka macnaha simple future tense-ka sheeko yar oo ku saabsan aan oo ah gabar cadaan ah arooskeeda wedding plan macnaha gabar cadaan ah oo aan la yiraahdo ayaa waxay qorsheynaysaa in ay aroos dhigato laakiin weli qof intay ag fadhiisatay lama hadlin laakiin niyadeeda ayay ka qorsheysanaysaa marka qorshaha ay rabto bal iyadoo sheeko laga sameeyey nuxurka sheekadana aan idin sheegay ay tahay in aan ka barnayn wax la yiraahdo future tense oo ah ficil aan hore u dhicin taasoo aan isticmaali doono ereyga la yiraahdo will macnaheedu waxaa waaye waan samayn doonaa waan samayn doonaa oo ah weli ma samayn laakiin waan samayn doonaa okay haddii aan sheekada guda galo aan oo ah gabar cadaan ah sat alone by her desk waxay ku fadhidaa ayadoo kaligeed ah miiskeeda ama kursiga ay leedahay ayay kaligeed ku fadhidaa and sidoo kale happily imagine ayadoo weliba dhoola cadaynaysa ayaa waxay suuraysanaysaa her upcoming wedding arooskeeda kusoo food leh ayay suuraysanaysaa macnaha waxay is leedahay si u qurux badnaan doono iyadoo faraxsan oo dhoola cadaynaysa ayay ku fikiraysaa okay she thought macnaha waxay niyeysanaysaa waxyaabaha ay ku fikiraysa ayaan rabnaa inaan marka aan idin sheego waxay leedahay I will have a big wedding waxaan samaysan doonaa aroos mise aan dhigi doonaa aroos aad iyo aad u weyn sidoo kale waxaa kaloo aan xiran doonaa waxaan kaloo xiran doonaa a beautiful mara aad iyo aad u qurux badan white oo cad dress macnaha taashka dumarka ay xirtaan arooska ah oo aad u qurux badan welibana cadaan ah ayaa xiran doona ayay leedahay I will also sidoo kale waxay leedahay waxaa kaloo aan walk down aan kusoo lugeyn doonaa mise aan kusoo dhex socon doonaa the center of the church macnaha dhexbartamaha mise khadka guduudka ah ee loo dhigo aroosyada la dhigo kaniisadda inkastoo ayada kaniisadda ka dhiganaysa gaal tahay laakiin howlalka sidoo kale waa lagu dhigtaa oo gabadh markay taashka soo xirato waxay soo gashaa leenka guduudka oo la dhigay roogga la dhigay ayay kusoo lugaysaa and sidoo kale the dress dresska marada cadka ay wadato aad ku quruxda badneed ay noo sheegtay will drag wuxuu jiitami doonaa along isagoo jiitan dheer sameynaya behind me ay leedahay waxay leedahay wuxuu jiitami doonaa gadaashayda dresska aan wata wuxuu lahan doonaa mara ka daba jiitamayso oo aad u dheer waxayna jiitami doontaa gadaashayda okay I will wear ilaa hadda iyada hadlooso waxay leedahay I will wear waxaa kaloo xiran doonaa a diamond necklace waxaa waaye katiinad macnaha necklace waa katiinad diamond ah and a diamond earring sidoo kale dhago oo diamond ah oo diamond laga sameeyay diamond macnaha I will sidoo kale wear waxaan xiran doonaa high heeled shoes waxaa la yiraahdaa gabdhaha xirta kabaha dheerka waxaa la yiraahdaa high heeled shoes kuwa dhulka joogan waxaa waaye waxaa la short heels waa kuwa aan qoob lahayn ama kabaha qoobka leh waxaa la yiraahdaa high heeled shoes that will make me waxay leedahay kuwaasoo iga dhigi doona look inaan u ekaado tall qof dheer soo marka waxaan is dhigi karnaa aan waa gabar gaaban I will sidoo kale waxaa kaloo samaysan doonaa mise aan diyaarsan doonaa
or aan isticmaali doonaa a professional makeup aad iyo aad u tayo sare oo u wanaagsan ayaan macnaha marsan doonaa. I will look so beautiful. Marka kadib markaan makeupka isticmaalo waxaan u ekaan doonaa gabar aad iyo aad u qurux badan. I will look so beautiful. waxaan ahaan doonaa qof aad iyo aad u qurux badan. It will take waxay qaadan doontaa my husband's ninkeyga breath away, macnaha ninkeyga neeftiisa mise like wuu isku nixi doonaa, wuu yaabi doonaa, waxaas idana wow what a beautiful, macnaha hataa marka qaar waxaa laga yaabaa is leedahay meeshaan ay leedahay it will take his breath away, macnaha hadal dhan maka soo bixi doono, ma neefsan doono, soo ula yaabay quruxdeeda keliya ay leedahay. Marka waxaa waaye dhawaqa qofka markuu isla hadlayo u dhahaa so how much imisa macnaha qiimo ahaan will all of this cost, imisa qiimo ayaa ku kici doono waxyaabaha ay soo sheegatay oo ahaa dhago katiinada oo diamond ah, kabadha dheer, hotelkii oo hoolkii arooska lagu dhigi lahaa, taashka quruxda badnaa, makeupkii, intaasi imisa qiimo ayay ku bixi doontaa ayadaa isweydiinaysa weli. Intaasina waa maskaxdeeda waxa ay ka diyaarsanayso, ma ahan waxay afkeeda ka sheegayso. Okay, waxaa kale leedahay I will sidoo kale waxaan samaysan doonaa have my wedding arooskayga in a big church, kaniisad aad u weyn ama meel aad iyo aad u weyn, hall ah ama waxay ahaato meel walba wax lagu dhigaayo oo aad u weyn, with a pretty windows. Haddaba ayadaa markay quruxdeeda sheegaysa waxay ka sheekeynaysaa meesha arooska ay ku dhigan lahayd. So waxay tiri I will have my wedding arooskayga waxaan ku dhigan doonaa in a big church, kaniisad aad u weyn, with a pretty windows, muraayada aad u qurux badan, and a nice priest, iyo sheekh ama isheeg ninka kaniisada adi sheekh ay yiraahdaan ama pastor oo ninka oo kaniisada u weyn oo mas-uulka ka ah ama sheekha kaniisada. Waxaan qabsan doonaa tiri hool ama macnaha kaniisad aad u weyn oo muraayada qurux badan leh oo sheekh fiican uu joogo. Hadana how much will a church like that cost? So marka kaniisad saan aad u qurux badan oo muraayada qurux badan yahay oo sheekh fiican uu joogo, imisa qiimo ayaa ku bixi karta? Still ayada isweydiinaysa su'aashaas. Okay, we will sidoo kale waxaan samaysan doonaa tiri we will have waxaan samaysan doonaa a big reception, soo dhaweyn aad u wanaagsan, in a big hall, aroos macnaha hall aad u weyn ayaan ka dhigan doonaa tiri, soo dhaweyn aad u wanaagsan oo xaflad ah. We will hire a cook, marka hallkaasi waxaan u kiraysan doonaa tiri nin cunto kariya ah. The food will be, cuntadana waxay ahaan doontaa mid very tasty ah, macnaha aad iyo aad u macaan badan. We will serve waxaan macnaha cuntada meesha laga bixin doono waxay noqon doontaa a lobster, anyaxa, and a sushi, cunto oo hindida ay isticmaasho waaye, so a sushi and a lobster, okay, with a lot of drinks. Marka ayada weliba aan sii raacin doonaa tiri cabitaano badan. Okay, we will have sidoo kale waxaan samaysan doonaa tiri or aan diyaarsan doonaa very tall cake, toorto aad iyo aad u dheer, macnaha toorto inta soo dabaqa la diyaariyay oo aad u weyn oo aad u qaalisan ayaan samaysan doonaa. Marka waxay leedahay waxaa waaye macnaha ayadaa iska shakinayso markay fikirto waa shakinay. Waxay leedahay how much will a reception like that cost? Soo dhaweyn mise xafladtaas oo kale ah imisa qiimo ayaa ku bixi karto? Waa su'aal. So meeqaa ku bixi karto ayadaa isweydiisay. Okay, we will invite waxaa kaloo soo dhaweyn doonaa mise aan soo dhaweyn u samayn doonaa everyone we know, qof walbo anaga naga mid ah oo aan naqaano waan soo dhaweyn doonaa oo waan martiqaadi doonaa. Invite waxaa waaye martiqaad. So we will invite everyone we know. We will invite all our friends. Sidoo kale waxaan soo dhaweyn doonaa waxaan martiqaad u fidin doonaa asxaabteena from home, kuwa anaga isku xaafadnahani, and all our friends from college, iyo asxaabta ama wiilasha ama gabdhaha asxaabta aan nahani ee aan isku college-ka nahani. Okay, we will invite sidoo kale waxaan martiqaad u fidin doonaa everyone from work, qof walba oo asxaab ah oo isla shaqeyno, and everyone qof walba from this church oo kaniisada aan isku baranay oo mise asxaab ah ku nahnay. We will invite waxaa kaloo aan martiqaad u fidin doonaa
all our aunts eedayaalkeen and all our uncle and cousin adeeradeen uncle waxaa waaye adeeradeen and cousins waxaa waaye ilma adeeradeen macnaa adeerkaaga cunugu dhalay waxaan dhinaa cousin. We will also invite waxaa kaloo sidoo kale aan martiqaad u fidin doonaa all their kids inta aan soo sheegnay ilmahooda eeda ilmaheeda adeer ilmihiisa abti ilmihiisa ama habaryar ilmaheeda ay dhahday markadana how much sidoo kale meeqa qiimo ahaan will that many people eat macnaa lacag ahaan imisa ayay cuni karaan intaasi oo qof. Suddenly waxay tiri marka haye marka waxaa waaye suddenly waxaa waaye iyadoo marka isla hadashay dib iskugu noqdo waxay tiri haye aan tobt waa fikirta marka waxay dhahday haye hadda marka waxaa waaye iyada isla hadashay waxay tiri aan tobt marka intaan soo dhamayso waxay dhahday on the second thought macnaha markii ay soo hadashay soo fikirtay maskaxdeeda la soo hadashay waxay tiri I think ay dhahday waxaan filayaa mise aan rabaa mise aan niyeysanayaa we will have waxaan samaysan doonaa a small wedding aroos iska yar oo iska simple ah. So wixii ay soo sheegaysa dhanba waxaa waaye imagination oo ah waan samaysan doonaa ma ahan laakiin waan samayn doonaa may ahayn. So waxay dhahday intaas dhan kasoo gudub hadda waxaan rabaa inaan samaysto aroos iska simple oo iska yar. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen cashirkani oo macnihiisa mise faa'iidadiisaba ay ahayd inaan ku baran wax la yiraahdo future tense oo ah ficil aan weli hore u dhicin oo qofka uu rabo inuu sameeyo. marka cashirkan waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahantay sheekadan ilaa sheeko kale waa badan yihiin sheekooyinka insha Allah. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar haddii aad ka heshay sidoo kale saxaabtaada la wadaag commentiga inoogu reeb wixii fikrad ah haddii wax talo iyo tusaale aad noo hayso inoogu reeb dhanka commentiga. wax muuqaalka inoo dheeraada ma rabo intaan kusoo koobay intaan mid lamid ah kumdan waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.